ciidamada booliiska Somaliland waxa lagu gubay qaad kontrabaan oo ciidamada booliiska Somaliland gacanta ku soo dhigeen qaadkani ayaa ka koobnaa 200 oo kiilo oo qaadka dhaadheera iyo in ku dhow 90 marduuf oo qaadka loo yaqaan dadarta halkaasina waxa ku sugnaa mas'uuliyiinta guddiga ka hortagga cudurka COVID-19 iyo guddiga heer gobol ee cudurkaasi iyo taliyaha ciidamada booliiska Somaliland halkaasina waxa laga jeediyay hadallo kala duwan oo la xiriira qaadkan sharci darrada iyo ciidamada booliiska Somaliland gacanta ku soo dhigeen ugu horreynna taliyaha ciidanka booliiska Somaliland barasaabka gobolka Maroodijeex iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Somaliland oo arintaas ka hadlaya ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa halkan dabadayda ka muuqda oo yaala xagga naga dambaysa qoladeedan halkan joogta ilaa 200 oo kiilo oo ka waaweyna oo qaada iyo ilaa 90 marduuf oo dadarta ka loo yaqaana iyadoo la fulinaya amarkii ka soo baxay guddida sare ee COVID-19 loo xil saaray ee uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiiradu ay ka mid ka hayeen iyadoo amarka ciidanka booliisku fulinayo ayaa waxa in la joojiyo qaadka muddo uu istaago ayaa waxa isku dayeen qaar kamidi iyagoo aan filaya raggii ay dawladda qorshaha wada qaateen inay amarkii qaateen oo aanay waxba soo gelin ayaa waxa isku dayay rag kale oo aan maaragtay qorshaha ku jirin inay qaadka soo kotrabaaniyaan oo amarkii dawladda majaxaabiyaan oo ay qaadka soo geliyaan Jamhuuriyadda Somaliland nasiib darro ciidanka booliisku wuxuu soo qabtay habeenkii koobaadba maalintii koobaadba shalayba wajaala lagu gubay qayb kamid ah maantana wuxuu soo qabto xalay soo qabtay ciidanka booliisku qaadkan dabadeeda yaalaan ku celiyay ilaa 200 oo kiilo iyo ilaa 90 marduuf oo dadara oo saddex goobood laga soo qabtay oo lagu soo qabtay 2 gaari iyo hal eedaysane inagoo fulinayna amarkii ay soo saareen guddida heer qaran ee ka hortagga xanuunka COVID-19 waxa maanta halkan aynu ku gubaynaa sida uu taliyaha ciidanku sheegay 200 oo kiilo oo qaadkii dhaadheeraaya iyo 100 marduuf oo dhowdhow oo ah kii kale dadarta waxaan u mahadnaqaynaa ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Somaliland oo ku jira hawlgalladii iyo awaamirtii taliyuhu uu siiyay fulinaya oo hawshan fuliyay aad iyo aad ba u mahadsantihiin waajibaadkiinii baa gudateen annaguna waanu idin garab taagana waxaan u dugaynaa dadka isku dayay inay fuliyaan amarkii lagu joojiyay qaadka ee ku meel gaarka ahaa oo lagu ilaalinayo caafimaadka bulshadeena cid kastoo isku dayda inay jabiso awaamirtii ay soo saartay dawladdu talaaba laga qaadayaa gaadiidka waa lagala wareegayaa qaadka ay isku dayeen inay soo geliyaanna waa la gubayaa shacabka reer Somalilandna meel kastoo ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay iyaguna iskarab taagaan awaamirta ay xukuumadoodu soo saartay ee lagu ilaalinayo caafimaadkooda imanka baabuurta waa arkaysaa halkan taagan ee meesha joogta waa arkaysaa qaadka lagu qabtay laga bilaabo saacadda baabuurtaas waa baabuur ciidanka booliisku leeyahay ninkii gaariga lahaa xalay tolo waxaa nin xaqlaah oo gaari leh ayuu ahaa maantana waa nin caydha isaga isku ciyaaray laakiin ay sugaysay dhibaatada xalay gaari buu lahaa imanka laakiin gaari ma laha ciidanka booliiska la gaari kasta oo lagu qabto jaadkana saasaa loola wareegaya istacaab khasaarinna baan leeyahay nin kasta oo ilaa gaarigaan karaynaya ama gaariga qaad baan soo saaraya waa lagaa qaadi doonaa waxa si dhib ma leenina nin walba waxa ay ka deyso hadhow erga ma soconayso xuduudaha ciidankii waa la kordhiyey oo haddii biliis noqotay haddii military noqotay ciidan badan xadkii waa la geeyey oo kalsoonahay inay soo qaban doonaan wax kastoo isku daya in ay inay sameeyaan arrintaa waxaa kaloo farayaa guddoomiyaasha degmooyinka tuuliyaasha hayr tuuliyaasha qof kastaaba isaga ayaa laga rabaa hayr tuulo kasta iyo guddoomiye degmo isaga laga rabaa inuu degmada iyo meesha uu maayir ka yahay ama hayr tuulaha ka yahay ama barsaab ka yahay wax alla wixii ka talaabay isaga ka mas'uul noqonaya dhankiisa agaasimaha guud ee madaxtooyada Somaliland oo arrintaasi wax ka weydiinay ayaa isna ka hadlay marka in dadkii caafimaadkooda la ilaaliyo awgeed ayaa jaadka loo joojiyay kulleena markuu amar soo baxo dadka intiisa badan way qaataan kulleena haddana waa lagu talagalay in dad badan aan qaadanayna jiri doonaan oo jabin doona sida awgeed tan waxay maanta ka mid ahayd dadkii aan amarka qaadan ee jaadka soo geliyay oo halkan in ka badan 300 kiilo oo jaad ah
maanta lagu gubayo talada ugu fiican bixin lahaa waxay tahay warjaadka muddada la joojiyay amarka laga soo bixiyay qofowna isku dayin inaad jabiso Ismaan Axmed Ismaan Saabti